filimka gargaarka laga xiray marinka Rafax dadka baahida oonka iyo go'doonka la dhimanaya. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa gaadiidkii gargaarka siday oo ay marinka Rafax ka xirayaan ciidamada ilaalada xuduudda ee Masaaridu. Filimkan qodobada ugu muhiimsan waa inaysan nidaamka hadda Masar ka jira ee CC kala jeclayn dadka baahida u baaba'aya iyo inay Yuhuudda toos uga amar qaataan nidaamka CC. Gaadiidkii gargaarku markii ay xuduudda saas u soo gaareenba waxa qoryaha ku qabtay ciidankii ilaalada xuduudda ee Masar. Qoryaha ayay ku qabteen waxayna leeyihiin baabuurka dami oo ka soo deg. Darwalku wuxuu leeyahay maxaad iga rabtiin, laakiin waxay leeyihiin hadalka jooji dhulka imo oo gacmaha kor u taag. Wuxuu dhahay naga wareega aan kaalmada gaarsiino dadkan baahida u dhimanaya ee Gaza. Daaqadii waa ay ka fureen baabuurka dami oo ka soo deg oo gacmaha kor u taag. Kii kalena baabuurkaas ayaa laga soo dejiyay, labadoodaba waa la isu keenay. Baabuurka ayay gacmaha u saareen oo waa ay jeebeynayaan, laakiin wuxuu leeyahay adinka ayaa mas'uuliyadda qaadaya oon iyo baahi ayay u dhimanayaan. Labadoodaba jeebo ayaa lagu adkeeyay, baabuurtii oo baakiman ayaana laga waday. Filimka qaybtaana waxaa lagu matalayaa dadkii baahida iyo haraadka u dhimanayay oo meel shabaq ah weelal maran ka soo taaganaya kadibna loogu shubay badar shiidan oo baaldiyaal lagu qasay. Qofkiiba qaada ayaa wax yar loogu ridayaa. Intaas ayuuna qof walba maalmo dhan naf ka dhiganayaa oo uu ku sugayaa gargaarka la leeyahay wuu idiin imaan doonaa. Xafiiskan waxaa ku qoran ciidanka ilaalada xuduudda, waxaana lagu matalay saldhiggii ciidanka Masar ee marinka Rafax. Ninkan isagoo jeebaysan ayuu weli doodayaa, annagu kaalmo caadi ah ayaan wadnaa ee noo fura marinka. Muddo 2 bilood ah halkan wax kaalmo ah lagama gudbin, dadkii Gaza waxay u dhimanayaan baahi iyo oon. Taliyahan wuxuu leeyahay annagu marinka ma aanan xirin ee waxa uu ka xiran yahay dhinaca Israa'iil. Ninkan wuxuu ku doodayaa annagu kama aanan imaan dhinaca Israa'iil, waxaan ka soo galnay dhinaca Masar. Aawa Israa'iishu halkaani waa Masar, waa dhulkii Masar, Israa'iil ma aha. Saaxiibkiis ayuu weydiiyey maxamuud xageen ka imaanay, wuxuu yidhi dhinaca Masar. Taliyuhu waa uu ku daalay askarigan ayuu dhahayaa igala hadal. Askarigu wuxuu dhahay waan idiin sheegnay marinku wuxuu ka xiran yahay dhinaca Israa'iil, ma fahmaysaan mise ma fahmaysaan? Wuxuu leeyahay waan kuu sheegnay dhinaca Masar ayaan ka imaanay, iga fur jeebadan aniga ayaa ku fahamsiinaya oo kuu sharaxaya halkaan ka imaanay. Taliyuhu wuxuu dhahay ha laga furo. Markii laga furay kursigan ayuu soo fariistay, wuxuu isku dayayaa inuu fahamsiiyey inay ka yimaadeen dhinaca Masar, ayaguba waa ay og yihiin ee way ismoogeysiinayaan, amarkana Netanyahu ayay ka qaadanayaan. Markuu soo fariistay wuxuu dhahay marinka Rafax wuxuu ka mid yahay Masar, wuxuu ku yaalaa dhulka Masar, go'aankuna gacantiina ayuu ku jiraa. Taliyihii tale ayaa ku caddaatay. Taliyuhu mar kale ayuu ku celiyey marinku waxa uu ka xiran yahay dhinaca Israa'iil, laakiin saaxiibkiis ayaa dhahay oo calankan ayaa iska leh, asagoo sheegaya calanka Masar oo taliyaha gadaashiisa taagan. Taliyuhu wuxuu dhahay marinkan annaga ayaa ka talina. Wuxuu dhahay sidee u dhacday inaad marinkan ka talisaan haddana Israa'iil ay xirtay? Maba dhici karto in sidan loola doodo askarta CC ee filimkan Yemeniyiin ayaa sameeyeen. Ninkan wuxuu taagan yahay maxaad bilowgii noogu sheegi weyseen inaad amarka ka qaadataan Israa'iil ee uusan idan amrin madaxweynaha Masar Cabdulfataax Asiisi. Taliyuhu aad ayuu u xanaaqayaa, wuxuuna leeyahay iga horwareejiya, iga wada raggaan. Markaana dadkii baahnaa oo weelal maran soo taaganaya wixii loo qaybinayayna ay dhammaadeen. Gabadhan yar ee Maryama ee hadda loogu shubayo filimkan qayb weyn ayay ka tahay. Intaas ayaa loo helay digsi maran ayayna ula laabatay walaalaheed. Aad ayay u murugaysan tahay, ilmo yaryar oo baahan oo hooyadood iyo aabahood dhinteen ayaa sugaya. Waa kuwan raggii rag ahaa oo afkooda isku soo furtay oo markii jawaabahooda loo adkaysan waayay la iska soo fasaxay. Maxamuud wuxuu leeyahay oo ma waxaan sugaynaa Israa'iil inay noo ogolaato inaan gargaarka gudbino? Saaxiibkiis wuxuu leeyahay doqon yahow, halkaani waa Masar ee Israa'iil ma ahan. Marinka Rafax Masar ayaa iska leh, dhulka Masar ayuu ka mid yahay. Tani waa gabadhii yareed ee Maryama oo walaalaheed ula soo laabatay weelka maran kadib markuu ka dhammaaday wixii la qaybinayay. Digsi maran ayay ula soo laabatay walaalaheed, maanta xitaa waxa ay ku qamaajiso ma haysato, aad ayayna u murugaysan tahay. Waa kan Cabdalla ninkii naxariista badnaa ee gargaarka siday, laakiin shabaqan ayaa u diidan inuu walaalihiis gargaarka gaarsiiyo. Wuxuu shabaqa uga jeedaa gabdho yaryar oo ay dhibaato badani ka muuqato, laakiin mid ka mid ah ayaa ula ekaatay gabar yar oo uu dhalay oo lagu magacaabo Malaag. Maryamo walaalaheed waa ay ku soo kala carareen maadaama ay aad u gaajaysan yihiin, laakiin marka digsigiiyo maran ay arkeen waa ilmo oo ma gartaan wax waa la soo waayay ee aad ayay uga xumaadeen. Digsigiina waa ay tuureen. Walaashood ka weyn waa ay ka xumaatay waxa ayada iyo walaalaheed dhex maraya, laakiin wax ay samayso ma garanayso. Cabdalla waxaan dhacaya oo dhan shabaqa ayuu kala socdaa, laakiin ma awoodo inuu u soo gudbo dhankooda. Cunto iyo biyo intaba waa uu wadaa, laakiin looma ogola xataa xabad qajacla ah inuu ka soo gudbiyo shabaqa amar la'aan. Faham casharada badan ee ku jira filimkan. Walaalahaas baahida iyo oonka u baaba'aya, muslimiintii oo dhanna ay ku hareeraysan yihiin ayagoo taajiriin ah. Maxaa sababay? Yaa waaye cidda laga baqayo oo laga amar qaadanayo? Jawaabtu waa dhankaaga, filimkana waad ka arki doontaa. Cabdalla shabaqi ayuu ku qalalay, xitaa saaxiibkiis oo u yeeraya ma maqlayo, asagoo la yaaban ilmahaas yaryar dhibaatada ku dhacaysa oo uusan waxba u qaban karin. Maryama waxay walaalkeed oo yar ku madadaalinaysaa masaasad ay biyo yar salkeeda ka qoyan yihiin. Waxay cunto ahaan u cunaan dhirta qoyan ee guryahooda agtooda ku taala. Filimka marka laga soo tagana waa xaaladda dhabta ah ee ay walaalaheen ku sugan yihiin. Cabdalla markuu arkay ilmahan yaryar ee dhirta caleenteeda cunaya waxa uu saaxiibkiis ku dhahay waad aragtaa gabadhan yar waa gabadhaada oo kale, maxaad dareemaysaa? Cabdalla markii uu seexamaagay
wuxuu ku riyooday asagoo gabadhiisa yar oo malaak lagu magacaabo hadiyad u soo iibiyey. Gabadhiisu markii ay hadiyadii ka gudoontay waa ay ku farxi weynaysaa, kadibna inta tuurto qolofka ayay dhaqaaqaysaa iyadoo aan la hadlin. Waa uu u dhawaaqayaa waxa uuna dhahayaa malaak malaak malaak. hurdada ayuu ka soo boodayaa, hurdo dambena ma ladayo, biyo ayuu kabanayaa. waxa uuna kor ka daawanayaa dabka madadaalada ah ee ay ilmihii yaryaraa gurigooda hortiisa ka shideen habeenka. taleefankiisa ayuu soo qabanayaa, baraha bulshada ayuu furayaa, isla markaasna wuxuu arkayaa ilmo yaryar oo baahi la ooynaya, kadibna digsi maran dhulka ku garaacaya waan baahannahay. waalid iyo ilmo yaryar oo aad u duruufaysan, wax ay cunaan keliyana u cabanaya. ilmada ayuu ceshan weynayaa, laakiin wuxuu arkayaa saaxiibkiis oo ay hurdo dheer u baxayso quurinaya. dharbaaxsho inta ku kacsha ayuu leeyahay ka kac gantaalada. saaxiibkiis waa u naxayaa, korkiisa ayuu taataabanayaa, gantaalla inay ku dhaceen ayuuba moodayaa. wuxuu dhahay ma waxaad ku riyootay iyadoo ay diyaarado gantaal nagu garaacayaan? wuxuu dhahay waad iska quurinaysaa, qaza ayaadna oksijiinka ka qaadanaysaa. miyaadan arkayn diyaaradahan gantaalada ku garaacaya? baahida iyo oonka iyo go'doonkuna wuu u dheer yahaye sidaad ku awooday inaad sidaan oo dhan u quuriso? wuxuu dhahay hadda maxaan samaynaa? wuxuu yidhi waan fakaraynaa, waa inaan helnaa waddo aan ku gaarsiino gargaarka walaalaheen. wuxuu dhahay annagu waxaan joognaa dhulkii Masar, wax gargaar ahna ma gudbi karno ilaa ay nafasaxaan ciidamada Masar. ma waxaad leedahay waxa qaza go'doomiyey waa ciidamada Masar ee maba ahan Israa'iil? maya, Masar oo kaliya ma aysan go'doomin, muslimiinta oo dhan ayay walaala la yihiin. walaalkayow aan seexanno ayuu dhahay, shaqo badan ayaa berina sugayse. laakiin ninkan hurda kama soo dhacayso ilaa uu waagu ka baryayey. waxa uu fiirinayay dabkii yaraa ee ilmaha yaryar teendhada ka hor shiteen. markii waagu baryey, gabadhii yareed oo u ekeyd gabadhiisa malaak waa ay soo baxday, wax ay cunto ayay ka raadinaysaa qashin ay mar hore fogeeyeen. asaguna waa uu fiirinayaa asagoo ay ilintu ka da'ayso. asagoo gabadhii yareed isha la raacaya ayuu saaxiibkiis ugu wacay kaale aan wada quraacanne. wuxuu ugu jawaabay wax quraac ah kaama rabo. saaxiibkiisna wuxuu dhahay ma baahi ayaad u dhimanaysaa? xalay xitaa ma aadan cashay. wuxuu dhahay waa maxay cunnada aan cunayaa? gabadhaas yar wax ay cunto ayay qashinkaas ka dhex raadinaysaa. waxay qashinka ka dhex heshay qajaclo maalin hore la fogeeyey oo qalalay, afkeeda ayay ku gororinaysaa bal inay wax biyo ah ka soo raacaan. magaca gabadhiisii yareed ayuu 2 mar ugu wacay, laakiin waa ay soo fiirisay oo waa ay ka sii jeesatay, maxaa yeelay maba aaminsanin qof wax u qaban kara inuu carradaanba joogo. markii dambe wuxuu dhahay gabadhayda. way soo fiirisay oo waxay dhahday aniga miya? wuxuu ku dhahay haa, kaalay ii imow. waa ay u imaatay, wuxuu siiyey qajaclo biyo ah. markii ay cabtay waxay dhahday walaalahayna isii kuwa aan u geeyo. kaamiradii korkiisa ku xirneed ayuu fiiriyey, kadibna gabadhi yareed ayuu fiiriyey, dhowr xabo oo qajaclo ah ayuu siiyey. waxay dhahday walaashay iga weyn waa ay maqan tahay, walaalkay iga yarna teendhada irdeeda ayuu fadhiyaa, mid kalena waa uu jiifaa. wuxuu dhahay hooyada iyo aabbaha aaway? waxay dhahday hooyaday iyo aabbahay gantaaladii diyaaradaha ayay ku dhinteen. waa uu la sheekaysanayaa, waxyaalihi ay u baahnayd ayuu weydiinayaa, laakiin dhanka kale waxaa kaamirada korkiisa ku xiran kala socda ciidamada Masar iyo kuwa Israa'iil. markaas kadib sargaal ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa soo wacaya ciidamadii xuduudda ilaalinayay ee Masar, waxa uuna ku dhahayaa waxaan aragnaa shabaqi oo la dilaacinayo, waxaana dareemaynaa khatar amni. ninkan asagoo aan xagga iyo xagga fiirin wax alla wixii cunto bislaa oo meesha yaallay ayuu bac ku soo shubay. laakiin inta uu cuntada aruurinayo saaxiibkiis waxa uu ku leeyahay ciidamadii amniga ayaa yimid saaxiibkayow. waxaasoo dhan miyir uma uu lahaan, cuntadii ayuu la ordayaa, gabadhii yareed ayuuna u tuurayaa. walaalaha uge ayuu ku dhahayaa asagoo shabaqii sii fiirinayaba. askartii ilaalada xuduudda ayaa imaadeen, waa la kala tuurayaa, ina mari ayaana la leeyahay. gabadhii yareed waa ay ku faysaa markay aragto ninkii caawinayay oo la katiinadaynayo. saaxiibayaal, gaaladu ma ogola soo gudbinta filimaanta noocan oo kale ah, waxaana laga yaabaa inaan facebookayga iyo youtubekayga labadaba ku waayo. filimku waa uu dheer yahay, haddii aysan nagu qabsan intaan, adinkuna aad xuquuqda muuqaalka siisaan aad meel dheer gaarsiisaan, laygta iyo sheertan aad ugu roonaataan, waan ku soo daraynaa qaybta labaad. haddiina laku dhago ama aad ka seexataanna annaguna waan ka seexan doonaa.